hawada tibiyada ku jire dunida laga halacsade hawada tibiyada ku jire dunida laga halacsade jabuuti helan hormuudka weeyaan toostii jabuuti helan hormuudka weeyaan toostii waxaan leeyahay xasan baa garab fadhiya xasan sheekh oo kulliba qoraa weyna oo ummadda reer jabuuti oo dhan ay ku xiran tahay barnaamijkuu yahay oo jabuuti toos ka baxa xasan daaliye iyo xasan sheekh kulliba aad uga barateen wax wanaagsan xasan kulliba waxaa lagaaga bartay wax wanaagsan xasanow barnaamijka caawa iyo waxaad usoo diyaarisay iyo bulshadu waxay kaa sugto waa aad iyo aad wax weyn soo dhow xasan oo barnaamijka kusoo dhowow ummaddaadana way ku sugaysa waxaan leeyahay kusoo dhowaada xasan kulliba waxaan sii gudagalayaa barnaamijka intiisii kale kulliba maxamed saciid geedi baa jira maxamed saciid geedi kulliba in badan baad ka hadashay barnaamijyadaada kaga hadashay hadday yihiin maalmihii jimcooyinkii aad soo dhaafnay ee hore ee sanadadii hore iyo sanadada maanta 2023 iyo 2021 intaba waad ka hadlaysay laakiin maanta haddaan joogno oo maaragtay bishii 11aad bishii 11aad sagaalkeygii aan joogno maxamed saciid geedi taariikhdiisii in badan baad xasan oo ka soo hadashay laakiin maanta maxamed saciid geedi bal taariikhdii uu maanta u joogo iyo taariikhda siduu uga baxay iyo siduu ku jiray iyo wixii ku dhacay noo sheeg xasano bulshada la wadaag waxa weeyaan xasanow maxamed saciid geedi horta waa inaa saciid bay dadka u yaqaanaan Somaliland ama Soomaalidu u yaqaanaan aw saciid maxamed saciid geedi wanaga isu ka sheekeynay waa nin ka shaqaysan jiray hudheerka wuxuu shaqayn jiray odagii looranay bidibidi looranay buu shaqaynay furnabe kadib waxa dhacay waxa soo galiyay suuqa oo uu shaqo u bilaabay ninkii bangiga dhexe haysanayay ee Khadraxay la dhashay Ismaaciil Marxaaskiisa la dhashay waa soo galiyay suuqa oo arrimihii shaqooyinkii madoobaaba la geliyay oo ka shaqaysan jiray ragaasi kontrabankii iyo balaayadii ka shaqaysanayeen baa la geliyay kadib halkaasi markuu imtixaankii ugu horeeyay ku guuleystay Ismaaciil Umar baa loo geeyay sheefkii weynaaye maafiyada loo geeyay Ismaaciil Umar shaqooyin waaweyn buu dhiibtay markaa waa dalacaysaa baashan waa nidaamka maafiyada waa la dalacaa askari baa tahay waxaad noqonaysaa sheef markaa wuxuu noqday maxamed saciid geedi ragga waaweyn ee boss loo yaqaano under boss loo yaqaano yuu noqday kabtanada kala ah ayuu ka noqday meeshaasi alaabo waaweyn buu kala wadayay sida Iiraan alaabo laga keeno iyo alaabo la geeyo qarsoodiya Yamanta wax la geeyo qarsoodiya alaabo laga keeno kala wadayay alaabtaan ka shaqeynay kolay masaabiirta tahay iyo kolay wax kale ba tahayba marka xasan oo arrimaha markuu ka shaqeynayay ninkaasi uga shaqeynayay haddaba adduunkan waa la isdaba gurayaa waa la isdaba socdaa oo waxa weeyaan in waqti u baadooman ee marun baa lagu soo qabo weligaaba waxaad muluqda ku haysid wax madow meelaha la wareegtidba marun baa laga daba iman oo lagu soo qabanay marka waxa weeyaan sidaan wuxuu uga qoraynay sidaan umada ugu sheegaynay ninkii banaanka uu soo baxay waa la ogaaday waa laga daba tagay markii uu tagay Mareykanka haddaad xasuusanaysid bilo ka hor Musabbixi uu tagay Mareykanka ee ergeydii wuxuu ku jiray raggii raacay halka tagay uu ku jiray Musabbixi madaxweynaha Somaliland maxay waqtigiisu dhamaanayo bacda 3 sano maaynayo wuxuu waa kii tagay Mareykanka ee dadku ogaayeen ee dawladda Mareykanka qaabishay markay qaabishay waxa ku jiray maxamed saciid geedi ama inaa uu saciid halka uu ku jiray rag halka ka qayb galay inaa uu saciid waxa la soo hordhigay gooni baa loola kulmay rag ganacsatada sheeganaya gooni baa loola kulmay waxa la soo hordhigay inaa uu saciid qoraalo badan baa la soo hordhigay oo la yiri arrimaha dhabad ku jirtay maxaad ka leedahay baa la yiri ninkii halkaasi aduu khalkhal buu yara galay markaaba de sidii qaabkii kale loola hadlo la yiri saaxiibo waxa sameynayso dhawaan ku ognahay ninkan buuran ay u shaqeysay Ismaaciil markuu badbaadin maayaa la yiri waxa la yiri danahaaga garo anagu waan jireynaa waan joogeynaa baa la yiri intuu Ilaahay noo baneeyo laakiin ninkan buuran waqtigiisu u dhamaado mar dhowna deyn doonaa baa la yiri danahaaga garaa la yiri dhagta wax loogu yar qabtay dhagta markii wax loogu qabtayna de dantiisu garto ka fikir baa la yiri oo uu fikiro halkii de dantiisu ay iska raacay nala shaqeyn baa la yiri waxaagana wado ninka buuran noo shaqeyn nala shaqeeyna baa la yiri ma garan isagoo uu ka shaqeeyay waxbuu ka rasajilay ajaladu ka qabtay waxba laga duubaayo waa lagu isticmaalay sidii Xasan Sheekh ba loogu isticmaalay ajaladaha looga duubay kala loogu duubay ee dantaada garaa la yiri ma garan
maxamed saciid geedi dantiisa iska wataa oo isagu markii horeba xariif weeyaan oo ka xariifsan yahay raggani ninkuu iskoola ma dhigan jaamacada sare ma dhigan laakiin maskax buu ilaahay siiyey bahalkan la yidhaha fiber bahalka la yidhahda lagu wada hadlay sida whatsappka ayuu markuu iska sawirto isagu maxaa la yidhahdaa ii sheeg warqadahan dee alaabta lagu keeno oo dhan iyo wixii alaab uu keeno oo dhan bakaaba ku yar sawiranaya telefoonka isaaba waasaan ugu yar sawiranaya ama video kaga duubay fiberkaaba ku tuuri jiray nin kale oo jooga wuxuu u tuuri jiray Dubai nin jooga oo isaga ku xidhan oo alaabta u urinayay waxa loogu gurayay mid informative la heshiyo Hindiya halka jooga ninkaaba u urin jiray oo sajili jiray oo wuxuu samaystay maxay kayd ama arkiif buu samaystay waxyaabahan soo dhaadhaca codad badan buu iska duubtay wax badan baa uu iska sajisho halka dhigtay kayd badan buu iska dhigtay markii horeba oo meel buu ku tuurani jiray baalka fiberka la yiraahdo uu isticmaali jiray waqtiga marka waxa dhacay sida markuu wax u dhigtay xasan oo uu iska haystaa wax ku dagaal gala maanta oo Ismaaciil Umar ma hadidi karaya isaga hadduu hadidaad la yimaado wax banaanka soo dhigi karo haystaa haddaba arrimihii maanta waa la leeyahay meel maray maxamed saciid geedi meel alla meel maray iyo meel jaamac agta dhigay waa la leeyahay uu dhuumanaya uu isqarinaya haddaba arrintiisu nin baa loo xil saaray meel dheer balooma marin wadanadii qarbigu waxay xil saareen ama magaaladii waxay xil saareen inuu runta sheegayo oo hoosta wax ka dhiibayo kulleyba waxa la siiyay San Dominique waa tii buka calayd iyo iibsaday baasaboor jasiiradda la San Dominique wadanka la yiraahdo uu iibsaday baasaboorkiisa oo wadan baasaboorkiisa la iibsan karo oo dad lacag dhigtay lagu siinayo oo ku yaala Jamaica agtiisa ku yaala marka IT bay isku dhigsiinba marka waxa weeyaan xasan oo baasaboorka ku dhoofaa wadanadana iska jooga sida maxay Turkiga dhulka iska jooga haddaba arrimihiisa nin baa loo xil saaray oo daba socda ninka oo ka shaqeeya nin la yiraahdo Axmed Diini la yiraahdo oo isna isaaqa oo baasaboor Maali haysta wadanka Maali la yiraahdo wadankiisa baasaboorkiisa haysto oo adduunka meesha uu doona ka dhaadhaca oo shaqo xoog leh wada ninka baa loo xil saaray ninkan oo shaqadiisa ku daba jira oo arrimihiisa wada oo arrimihiisa ka shaqeeya maxamed saciid geedi haddaba maxamed saciid geedi sinuu uu wixii yaray hoosaan noogu sheeg dheedus kaga sheegayo iyo in kalena ninka baa loo xil saaro la socdo haddaba wuxuu dhiibi karo u dhiiba oo calaamadii ugu horeeyay waan aragnaa maanta xasan oo intuu sida uu maxay hayday uu u shahiiday maxamed saciid geedi waan aragnaa calaamadii ugu horeeyay waa la arkaa waxa kamid ah xasan oo qoraal bishan saddexdeedii soo baxay bishan ku jirna saddexdeedii ka soo baxay tresorka ama khasnada dhexe ee wadanka Mareykanka ama tresorka ay raadaan sanction ay ku soo saartay shirkado petrolka Sanadoofiya iyo ku soo saartay shirkado maraakiib laba sanction ku soo saartay oo xukun saartay Mareykanku saaray waxaan jeclaan lahayn haday suurtagal tahay noo soo saaraan treasure sanction oil shipping haduu inamada farsamada ay soo gelin karaan soo geliyaan halka way ku saareen waxa ku jira halkaasi arrimaha petrolka laga qaado Iran iyo Venezuela loo iibiyo hoosaan looga soo iibiyo haddaba saan u sheegay arrimahan maxamed saciid geedi oo Ismaaciil Umar uga shaqeyn jiray waxa kamid ah arrimaha laga soo qaadayay Iran laga soo qaaday waa ka wadarkaysiin waa bangiga dhexe Mareykanka soo khasnada dhexe Mareykanka soo saartay tresorka Mareykanka waxa ku jira haddaba dad baalka gashiin waxa ku jira markab la yiraahdo Young Boy la yiraahdo Young Boy markab la yiraahdo petrolka qaada oo iminka ku cadilan oo dhagax buu dhex galay maalmahan oo dhan in dhowr toddobaadaba wuxuu ku jira meel buu ku cadilan yahay petrolna uu sida petrolka uu sida wuxuu isku daray Venezuela iyo Hindiya iyo Iran iyo waxba la isku dardaray si loo laaqo haddaba markabkaasi wuxuu ku cadilan yahay iminka Singapore iyo Indonesia inta u dhaxaysa iyo meel ku jira oo wadanadaasi haday dadku qoraan Young Boy hadda qortiin Djibouti way soo bixi Google kama hadda ku qortiin way soo bixi kara Djibouti aad baa looga hadlay idaacado badan baa ka hadlay sida daragtiin haddaba markabkaasi wuxuu ku jira kuwa la saaray culayska la saaray wuxuu ka sajilay dalka Djibouti wuxuu sitaa calankii Djibouti ku badmaraya shirkad waxa maareynaysa ku taala saldhigeegu yahay shirkad saldhigeegu yahay Greg yaa maareysa markabkaas waxa kamid tahay maraakiibta maareyso waxana markabkaasi haddana maareeya oo dhinaca kale ka maareeya shirkad kale Hong Kong ku taala waxaad arkaysaa wixii inuu yahay wax qasan oo la qarinayo haddaba markabkaasi wuxuu u badan yahay markab uu Ismaaciil Umar leeyahay way u badan tahay oo magaca loo sameeyay Young Boy loogu qoray laakiin sidaan u malaynayo markaan ka daba tagnay taariikh hore xasan oo markabkaasi wuxuu yahay markab uu leeyahay lacagtii Djibouti laga soo iibiyay oo Ismaaciil Umar isticmaalo haddaba shirkadda maraakiibta la cunaqabataynta la saaray iyo shirkadaha la saaray waxa aaba ka wada shirkad la yiraahdo Artemov la yiraahdo shipping company yaa la yiraahdaa oo waxay ku taalaa
waxay saldhigaygu yahay wadanka Greece ku leedahay xafiis haddaba Mareykanku wuxuu dhaqabateen buu saaray waxay ka shaqaystaan hoos u soo iibiyaan petrolka inta maraakiibta la geeyo India iyo petrol laga soo shubi qayb yar haddana waa la soo kaxayna waxa la keenay Dubai baa qayb yar laga shubi haddana Iran baa la geeyno waa la soo buuxin intii badnayd baa laga soo buuxin Iran marka petrolka isku qasmaya oo marka control ama lagu sameeyo checking lagu sameeyo lama garan karo meeshii inuu petrol isku wada qasan sidaa bay ku shaqaystaan marka waa la qabtay markabkaas oo waxa weeyaan waxaad ka arkaysaa halkaasi haddayba cunaqabatayntii Mareykanku ay Djibouti soo gashay magacii Djibouti ku qoran yahay maanta maxay heeday wadana maxay waxyaabaha shirkadaha ay sanction ka saartay Mareykanku waxaad arintan Iran waxa isla markabkii Iran iyo Djibouti way isleedahay waxaad ka dhaxarkaysaa waa arrimii Maxamed Saciid Geedi ku jiray inaa Saciid ku jiray baad ka dhaxarkaysaa halkaasi uu ku lahaa baad ka dhaxarkaysaa marka waxa weeyaan ninkaasi waxay ka dhigan tahay si fiican buu shaqeeyay annaguna waxaan leenahay sida kuwad waan kugu taageersanay ummadda Djibouti in kastoo dib la shaqeynta Ismaaciil Cumar hadda dib ku haysay ummadda Djibouti haddana waxyaabo lagu dhaafi karo maanta way tahay arrimaha maanta dhacaya waxyaabo lagu dhaafi karo way yihiin waxyaabo maanta Britol la oran karo waxyaabo la oran karo Britol waxaad u jeedaa wixii aad dib samaysay haddii aad nacam wanaag aad samaysid kadib oo ina Cumar iyo sirtiisii iyo wixii aad soo gashay iyo wixii ummadda lagu sameynayay iyo wixii aad fulayseenba haddaad qarbiga iyo adduunka u dhiibtid taa waa lagu dhaafaa u jeedaa Soomaa waa sax xumaantii uu falay shalay hadduu maanta sidaa weeyaan saxasana uu xumaantii shalay uu falay dhibtii u geystay Djibouti hadduu maanta qarbigaas uu iska siiyo wuxuu ka hayaa Ismaaciil Cumar wax badan buu ka hayaa oo uu aad buu duubay arrimo badan buu gacanta ku hayaa hadduu qarbiga gacanta uu ka saaro isagu badbaadaya ummadda reer Djibouti anaga marxaati u ah oo ninkaasi waa nin maxay ahayd laga dhaafi karo anaguna aan iloobi karno dhibta loo geystay aanan u arki karnana nin khalad galay oo saaxiib aan u arkaynaa Britol nin xoolihiisana laga daba tagi doono oo la ugaarsan doono ma ahin marka waxaan leenahay xasan way aad baad u macsantahay su'aashaasi su'aal baa saaran xasan su'aal baa saaran daawi su'aashaasi waxa weeye xasan xoolaha Djibouti ummadda reer Djibouti ay ka baktiyeyso ay gaajada u xidhan tahay ay maad aragtay macluusha ay ugu jirto ay dhibaato ay ku jirto ummadda reer Djibouti hadday tahay xagga dhaqaalaha hadday tahay xagga tacliinta hadday tahay xagga caafimaadka hadday tahay xaggii muciishada ummadda reer Djibouti way xaqaran tahay sidee u dhacday xasan ummadda reer Djibouti hadda waa dad aad u fara badan haddii malyuun lagu tilmaamo ay haddii 800 lagu tilmaamo waa dad badan oo dhaqaale soo galaya iyo waxa soo galaya mustaqbalka Djibouti ee aad u fara badan yihiin xasan sidee loo waayay qof damiir leh oo ay u dhacday qof dal shisheeye amba qof xoolaha ummadda inuu qaato amba la yiraahdo waa noo shaqeeyo waxaad doontid qaado oo haddii aan isdiidnana banaanka wala bax haddii kale oo qofku ay dowladda ay isku hormaadiin oo lacagta Djibouti intuu qaato banaanka wala baxo dad badan oo banaanka jooga amba dad badan oo reer Djibouti ahayn lacag fara badan inta la geliyo oo dhaqaale fara badan la yiraahdo ku shaqeeya xagga dambe banaanka wala baxaan maxaa keenay ummadda reer Djibouti maxaa dareenka u diiday dareenkii iyo dadnimadii maxay uga dhimatay xasan taasaa la isweydiiyaa bal su'aasha iga jawaabta waxa weeyaan xasanow sida xasanow aan noo sheegnay waxa weeyaan wadankan wuxuu gacanta ku jiraa argagixisuu gacanta ugu jiraa qolada la yiraahdo qowleysato aan niraahdo gacantooda ugu jiraa inamada farsamada waxaan leenahay loo daayo baashka aad noo soo dhigteen aad buu fiican yahay baashkaasi oo aan macniin doonaa mar dhow waxaan leenahay xasanow wadankan wuxuu gacanta ugu jiraa xasanow cadow buu gacanta ugu jiraa cadow ayuu gacanta ugu jiraa argagixisa qowleysato la yiraahdo ayuu ugu jiraa oo maafiyada Talyaaniga u dhiganta ayuu ugu jiraa marka waxa weeyaan xasanow nidaamkii la iskaga ridi lahaa uuna socdaa xasanow uu socdaa oo shaqadu way socotaa laakiin si dadku ma wada samayn karaan laakiin way imanaysaa wadano badan oo dhibtaas soo maray baa jira inagu uma horeyno oo waxa weeyaan cadowgan uu gacanta u galayna cadaan baa daba jooga baan isku ognahay in ma gaaraysan 4 qof yihiin oo ay badda lagu dari lahaa saacada badda lagu saacad quraata ku filneedo badda lagu dari lahaa
dad dagaalama maaha wad ku tawaanaga hore u sheegno abtiyaaleen baa dhagax ku dilay oo rasaas looma isticmaalo marka raggan waxba may qaadateen oo badda lagu dari lahaa saacad ee waxa hoos daba fadhiya waa gaalka oo noo shaqeeyaan leh oo iskaga dhigayaan rag u shaqeeya oo u ilaaliya danaha amniga badda iyo xagga ilaaliyaan ma ilaaliyaan raggani iyaga qaska wada oo al-shabaab iyo balaayo isticmaalaan waana fahamsiinay inta hadhayna waan fahamsiin doonaa maantana anaga nooma baahna iyagaaba fahmay oo ilaaliyo daba socdo waa la daba guraa aniga ku sheegaya maxamed saciid gediba wixii uu hayo waa ka iska shubaya iska dhiibayeed aragtay si uu badbaadsada dantiisa marka waxaan oranayaa veristation aan leeyahay ragga Isaaq Ismaaciil Muruu shaqeeya waa rag libaaxiina leeyahay geela arab walow naalku maray inuu wixii yara la goosto naftiisa la baxsaday maalintii baash xumaatay maxamed saciid geedi waa ka maanta qarbiga isku dhiibay wixii uu shubi kara shubaya ninka la daba dhigay Axmed Diini la yiraahdo Isaaq baasaboorka Malaysia waa ka daba ordaya la daba dhigay dantiisii buu gartay marka raggan ciise jaahiliinta leenahay sida Ilyas Dawaalo kale wuxuu moodayaa inuu meesha saa ku fadhiyo lagu maqan yahay oo wax laga sameeyo ma ogo waxa kamid oo lagu maqan yahay ninkii Cabdilaahi Cabdiye ku jira xabsiga waa lagu maqan yahay Xasanow oo isagu wuxuu tirsanaya Cabdilaahi Cabdi 3 bilood kadib waan soo baxayaa buu leeyahay laakiin wuxuu ogeyn faylka laga wado iyo waxa la wado ina 30 sano kale u xidhnaado ama gacanta laga geliyaa la doonayaa in wadanadan qarbiga dacwadaha socda dacwadahaasi waa iska arkaysaa waa kuwa bilaamay sanction maxay trezorka ama maxay kaydka dhexe ee Mareykanku waa ka sanction ku soo saaray ganaax ku soo saaray shirkadaha ay magacii Djibouti maanta ka dhex muuqdo weligeed ma dhicin magaca Djibouti shirkadu ka dhex muuqdo inaa ganaax la saar laakiin maanta way timiday in waa Iran petrolka ay ka iibinaysay iyo waxyaabo kale waxa laga hadlayo arrimahan waa arrimihii uu Saciid Geedi faraha kula jiray uu ka dhex muuqan jiray waxaan ku weydiinayaa Xasan Sheekh adigoo hadalka ka dhex galayo adigoo iga raaliya waxaan ku weydiinayaa waxa jira oday aad iyo aad maalqabeen weyna oo ka soo jeeda gobolada Soomaalida koonfur Axmed Jimcaale waxa weeyaan waa oday dhaqaale fara badan iska lahaa isagu laakiin meel uu ka keenay anu ma garanayo waqtiyadii hore dhaqaalaha ku ka keenay ma garanayo inuu ummadda Soomaaliyeed inuu xaqiray inuu ummadda Soomaaliyeed dhaqaalahooda ku lacageystay kama ogi oo gadaal baan dib u eegi doonaa laakiin Djibouti uu joogaa Axmed Jimcaale iyo Ismaaciil Cumar maxaa isku xidhay maxaa isku keenay Axmed Jimcaale iyo Ismaaciil Cumar iyo shirkadaha maaragtay ka hawlgala Djibouti iyo baananka iyo shirkadaha telecom iyo Telesaad iyo waxa uu dhahay hormood maxaa isku keenay Axmed Jimcaale iyo Ismaaciil Cumar taana noo macno حسن waxa weeyaan waxaan lahaa faylka nimika halka yaala noo dayn nimada farsamada waxaan u lahaa haday soo yar dhaadhiciyaan nimada farsamada kor waxa ku qoran shirkadaasi Vision la yiraahdo shirkadan waxa la yiraahdaa Mareykan waxa la yiraahdaa magaceega Xasanow Vision Technology Lounge baa la yiraahdaa shirkadaasi waxay ku takhasustay sadarkiisi waa muxuu ahaa ilaalada cyber security-ga wixii internetka security-ga internetka iyo bini'aadanka bay ku takhasustay shirkadaasi dawladda Djibouti way ka warwareegtay waa kii xaddi ay tageen markii ninkii xaddi marsooyinka u qaabilsan waa kii tageen Abubakar Xaddi way ka warwareegtay Djibouti laakiin waa kuwii Mareykanka tagay Washington saaxiibo waxa la yiri baashani waa inay joogtaa meesha ay ogaataa waxaan ka socda meesha balaaya ka socota culays baa lagu saaray dawladda Djibouti shirkadan haddaba waxay sameyn doontaa waa dhex fadhiisanaysaa internetkii waa loo dhex fadhiisanayaa ninkii Burnaay fadhiyay waa loo dhex fadhiisanayaa internetkii waa loo yimid magaran marka waa loo dhex fadhiisanayaa wixii meesha ka socdana hadeed farfar baa loola soconayaa marsada wixii maray iyo hub iyo balaayi iyo wixii marinayaan cali baa sidan yeelay Cumar baa yeelay ma noqonayso waa la dalacayaa hadeed tole sheekadaas baa soconaysa wixii ay indha yartu marsanayaanna waa la soconayaa meesha shiinuhu iyo ruushii balaayo u marayaanna waa la soconayaa dadkana waa la soconayaa sida kamaradihii uu Maxamed Jaamac gacanta ku hayay xaafadaha uu ku rakibay bootooyadu dadka daawanayay baa loo soo dhex mari doonaa oo la dhex soconayaa waa la soo dhex soconayaa meesha Xasan oo hadeed Djibouti dadka Djibouti waxaan leenahay cabsoonina hadeed internet ka cabsootin ma jiro waad aragteen shirkad baa u timid dhex socon doonta internetka sidoo Ismaaciil u dhex fadhiyay balaayo ka weyn baa u timid oo dhex fadhiisanaysa shaqa socoto waad arkaysaa shirkadani hay'ad weyn oo jecelayn inaan halkan hadalkii ka sheego hay'ad weyn oo adduunka shaqo weyn ka haysay ku xiran tahay oo qarbiga iska leeyihiin bay ku xiran tahay marka Xasan oo waxa weeyaan dadka Djibouti anagu waxaan halkan u sanfurnay oo waqti u gelinay si aan u fahamsiino inayna sida ay ugu sheekeen beenta u sheegayaan iyo propagandada ay wadaan Ismaaciil Cumar iyo kooxdiisu
inayna sida ahayn arrimuhu ay wada arrimo kaleba iyo dad kale oo iyagana ku maqan oo loo isku maqan yahay adduunka inay jirto siyaabo kale oo loo dagaalami karo inay jirto marka dadka waxaan leenahay xasan waxaan fahamsiinaynaa tan nidaamkan muxuu ahaa imika socdaay shirkadani wax badan bay kusoo kordhi doontaa internetka securityga internetka dadka reer Djibouti iyo nidaamka informatiga Djibouti ee ka shaqeeya meel kasta oo telecomka aadaan waxay doonaan soo dhaweeyaan leenahay shirkadan lana shaqeeya baan leenahay aadna u soo dhaweeyaan leenahay sababtoo ah amniga securityga wax badan bay ku kordhin doontaa alaabtu dhex dhigtay Ismaaciil Mariya fadhiga u dhex fadhiyayna way soo yaraan doontaa xasan haddaba dadka reer Djibouti uma jeedo shirkadani waxa u jeedaa waa khatarta ku soo meeshan xeebtan meeshan ay ku taala ay kamid yihiin argagixisada ay kamid tahay raggan hubka ka ganacsanaya ay kamid tahay indhayar oo iyadna meesha jaajuus iyo nidaam iska samaysatay wax badan oo kale ku jirta shirkadan ka shaqeynaysa waa wax dadka ummadda reer Djibouti dadka reer Djibouti wadana marka dadka reer Djibouti waxaan leenahay soo dhaweeyay arintani shirkadan waxaa laga leeyahay Washington Mareykanka laga leeyahay marka muxuu ahaa mar haddii halkaa gaadhay oo internetkii la soo dhex socdo annaga dambe noo tahay xasan oo wixii Ismaaciilkii Burnay dhex fadhiyay oo hadeeda inay ahayn qolooyin kale soo galeenna marka waxaan sheegaynaa xasan oo arintani waxaan leenahay dadka reer Djibouti waxaad la qaybsan karaysiin la qaybsada shirkadaas haduu ilaahay aad baad u mahadsantahay walaalkii xasan sheer oo kaaga mahad celinaya anigoo xasan daaliye oo ka howlgala Djibouti toos kulli waxaan sii guda galaynaa su'aashiis kale xasan bal Soomaaliya iyo arrimaha bal jira waqtiga maanta aan joogno kulliba Soomaaliya wixii jira waan ognahay ummadii qaraxii sooba ku dhintay iyo ummadii ku baaba'day iyo dadkii ku barakacay waxaan leenahay dhammaantood intii dhimatay Allah u naxariisto haddaan nahay bahda Djibouti toos intii dhaawacna waxaan leenahay ilaahay ha u boogadhayo dhammaantoodna waxaan leenahay dadka ku nool gobolada Soomaali weyn gobolka madaragtay amba deegaanka Soomaali weyn muqdisho waxaan leenahay dhambaal baan isoo direynaa haddaan nahay Djibouti toos waxaan leenahay weligiin jira cadowgiina ha jabo haddaan nahay Soomaali ka howlgala Djibouti toosna waxaan leenahay waan nagu xidhanahay wanaagiina iyo walaalnimadiina ayaa rabnaa hore u socdaan leenahay bal xasan su'aashaasi iyo jawaabteedii adaale waxa weeyaan xasanow list file baa soo baxay inamada farsamada haday noo soo bandhigi karaan way fiicneed file baa soo baxay oo Mareykanka soo saaray bangi maxay khasnada dhexe ee Mareykanka sida Treasorka hadda sheegayna soo saaray filekaasi waxa ku qoran rag badan oo Soomaaliya kana soo jeeda badankooduna Puntland kana soo jeeda beesha Daarood si waliba majeerteena iyo halka ku qoran fiilka magacadoodii ku qoran ragaasi waxa lagu haystaa inay hubka u fudeydiyaan ururka Al-Shabaab iyo ururka kale ee Al-Qaacida Soomaaliya la yiraahdo ee soo qaybtan Al-Qaacida ee Soomaaliya iyo fudeydiyaan hubka u fudeydiyaan ragaasi adarkaysiida magacadooda halka ku xardhan qaar badan baa Djibouti cilaaqaad la leh haddaba waxa la isweydiinaya xasanow raggan warkooda halku ka baxay iyo iyaad gudbiyay ma Ismaaciil baa sameeyay ma Xasan Sheekh baa sameeyay ma Ismaaciil Umar baa sameeyay anu ma maleynay horta inay Xasan Sheekh tahay waxaan ugu maleynay isaga dhan baan ka hadlaynay dhowr bilood ka hor ka hadli jirnay bil iyo laba bilood ka hor baan ka hadlaynay Xasan Sheekh waxa jirada laga duubay Djibouti oo isbel la gudbiyay oo xabad loo dhigay oo waagi visa Mareykanka loo diiday marka arintani nin baa jira ku gula jiro wuxuu maxay heeday ninka Ismaaciil Umar intuu qaski kula sameeyo birina hoosta doosiye ka samaysanaya oo ku gadaya adoo ku iibinaya oo kugu isku ka furanaya isku furtaa dadka ma garan marka ninka quraate ee arintaasi ragga way koobin ragga ka badbaada arinta ay fahmay sida Maxamed Saciid Geedi wanaga hadda sheegaynay Maxamed Saciid Geedi wixiisa isaga hoos buu duubtay oo hoos buu iskaga dhigtay meel maxay heeday aqligu waa wax loo dhasho ninka aqligu u dhashay in kastuu iskool waaweyn dhigana dadku waxay moodaan diplomka shahaadada iyo iskoolku inuu wax biiriyo oo si inuu aqliga keeno wuxuu ku biirin karaa waxbuu kugu biirinaya noloshaada laakiin si aqli kuma yeelay aqligu waa wax loo dhasho marka ninka Maxamed Saciid Geedi nin aqli u dhashay weena oo Saciid wixiisa meel buu dhigtay uu isku furtay Ismaaciil maalintu isku furay yiri uu ku hormaray oo isku furtay markaas waxa weeyaan taasi liiskan Xasan oo halkan Djibouti ka baxay kulli Ismaaciil Umar buu ka baxay taana waxa ku tusaysa inuu shakigaasi yimid waxa ku tusaysa laba shay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya jadiidka markuu yimiday toddobaadkan uu yimiday Djibouti uu yimiday maalmii dhawey waxa weeye waxa la socday ninka la yiraahdo Ali Cabdi Awaare Ali Cabdi Awaare ninka la yiraahdo ganacsatada ee majeerteen ayaa la socday reer Puntland la socday ninkaasi dhowr jeer hore afarta lagu fiiqay oo la yiri garacad buu dhisayaa
wadada dekada uu ka dhisay garacad marsada uu ka dhisay garacad waxa loo sameeyay hubka in looga soo dejiyo al-qaacidiya shabaab baa looran jiray horta lagu fiiqay dhowr jeer maantana wuxuu ku jiraa dadka liiska laga sameeyay doosiga laga sameeyay ku jiraa ee Djibouti yaala doosiga baa laga sameeyay ninka cali cabdi awaare doosiga baa laga sameeyay Djibouti yaala oo sababtoo ah wax weeyaan Ismaaciil wuxuu isku furto iyo baahan yahay markuu balaayadu timaadii xisaabtu timaado isku furto u baahan yahay marka raggan ninkan ma yaqaan saaxiib iyo walaal iyo waxa ma yaqaan isagu waa system mafia iyo mafia dad ku jirtid Britole hadii la isku kaafuran karo waa la isku kaafuran marka raggan waxaan leenahay ka dhaqaaq arinta waxaan leenahay cali cabdi awaare iyo ragga kale la shaqaysanaya ee degan gudnaadow waar ninkan uu nagu maqan yahay doosiyana uu waxeeyay taa waxaan iga daliilana sheegayaa ونتسي أحمد مرخاتية وضعي فربضنا waxaan jeedaa muxuu ahaa Farole madaxweynihii Soomaaliland Puntland Farole madaxweynihii Puntland Farole waxa laga dhacay 12 milyan xasan oo qisada baan uga yar sheekayn dadka 12 milyan lacag u dhow oo dollar baa laga dhacay Djibouti laga dhacay ninkaas waxa uu isaga iyo rag kale oo burcad badeeda ayaa isku tagay Djibouti waxay la hadleen islaantiisu soo diray oo islaantiisa la dilay uu qabay uu soo diray qadraxay buu timiday waxay yiraahdeen war waxaan doonaynaa lacagtaas inaad noo meedin si adduunkan u gashano hadda waa odaga maxay Faroolaan sheegaya gabadha Isaaqay geeriyo tuu qabay waan sheegay Djibouti uu soo dirsadeen lacagta inaad noo meedin baan doonaynaa baa leeydi markaa bay tiri qadraxay anu nidaamka lacagta lagu meedha ma aqaan ee waxaad u geynaysiin walaalkay markaa walaalkeed baa bangiga dhex joogay ninkii geeriyooda Allah u naxariiste ninka u geeyay tiri ninkii baa u nidaaminayay baasha oo kala waday ninkii baa lacagtii loo dhiibay ninkii maalintuu geeriyooday xasan oo dadka reer Djibouti si fiican bay u geeyeen maalintuu ninkaasi geeriyooday sidoo geeriyooday dadku aad bay uga wada shakisan yihiin waa la dilay baa la yiraahdaa ninkaasi maalintuu geeriyooday ciidanka madaxtooyada Ismaaciil Umar ilaaliya iyo daqiiqadii la soo sheegay inuu geeriyooday ciidanka ilaalada ee madaxtooyada ee Ismaaciil Umar ilaaliya ayuu Ismaaciil Umar aqalkii u diray ninkaasi maxamed jaamac muxuu ahaa maareey bangiga dhexe Djibouti ee qadraxay walaalkeeda bangiga waxa loo diray aqalkii baa loo diray waxay warqaday yaalay iyo document iyo maxay ahayd computer iyo wixii oo dhan waa la soo guray waa la soo qaatay meel baa la dhigtay aqalka Ismaaciil Umar baa la dhigtay xaaskiisii islaantiisina waa kii Faransiiska laga bixiyay leeyahay way baxsatay dadka laga dhaadhicin jiray haddaba odagii Farole wuxuu yimid Djibouti isagii raggii lacagtii ay ka taallay Djibouti bay yimaadeen tacsidii bay ka qayb galeen tacsidii markay dhamaatay bay Ismaaciil Umar la kulmeen Ismaaciil Umar bay yiraahdeen Ismaaciil Umar oo muxuu ahaa waxaad samaysaa lacag baa halka naga gashay lacagtaasi ninka lacag buu naga hayay geeriyooday si digay gabadha qabtay walaalkeeda la dhashay ee bangiga dhexe joogay wuxuu naga hayay lacagtaasi lacagta inaan nasiisiin baan doonaynaa bay yiraahdeen Ismaaciil Umar wuxuu ka yiri dhageysta wariyaadeen wuxuu ka yiri walaalahayow wadan baad timaadeen madaxweynihii iyaad ka leediin wadankan lacag madow aan soo gelinay wadankan tugniman ka wadnay tugnimadeedii noo saxbaad leedii madaxweynihii dhanaay wadanka maxaa naga khaldan buu ka yiri haddaad imika wadanka bixi weydeen xabsi daa'im baan nii xukumi odagii Farole uu cararay Djibouti uu ka cararay uu ka baxsaday iyo raggii la socday way ka carareen lacagtii sidii baa lagu waayay waxyaabaha lagu dilayna gabadha waxa la yiraahdaa uu qabay Isaaqay inankiisu ku dilay Farolena lacagtaada heed arrimaha lacagta oo wuxuu ga shakiyay inay ogaayeen islaantan iyo raggan qadraxaydii is ogaayeen baa looga shakiyay marka xasan oo si uu ku ogaaday ma garanay maxamed nina oo sicdan maxamed sheeg geedi arrimaha si uu ku ogaaday mooyaane banaanku soo dhigay arrimahaasi oo rag buu dhibay warkaasi u gaarsiiyay warkaana wada la soo gaarsiiyay rag maxamed sheeg geedi gaarsiiyay baa nagana la soo gaarsiiyay uu dhibay arrintaasi marka wax badan baa soo baxaya sida aad u arkaysid meeshaas xasan oo ka soo baxaya oo banaanka u soo baxaya marka waxaan leenahay fariin baan xasan ugu celinaynaa ragga Djibouti la shaqaysanay wali Ismaaciil Umar aaminsan sida Ilyas Muuse Dawaaliyo waxaad moodaysiin ina nalaga sii jeeday waa lagu maqan yahay doosiyadii waa la sameysanayaa waa la kala yaacayaa meeshani Abdullaahi Cabdina waxaan u direynaa fariin dadkii ku xiran inay gaarsiiyaan iyo xaaskiisa wixii dhageysanayaba wuxuu tirsanayaa inuu soo baxo Abdullaahi Cabdi may sheeko dheer boo bilaabmaysa ilaa 30 sano kala 40 sano kala loo diyaarinayaa taa waa inuu ogaadaa kol gaalada loo dhiibiyo kol xabsiga Djibouti la geeyay taswalka waxaan soo noqonayaa xasan oo haddaba dadkii reer Djibouti waanagii ma xasuusanaysaa sanad 2 sano ka hor ka qayli jirnay oran jirnay dadka lacagiina kala baxa bangigan Salama Bank Salama Africa Bank kala baxaan dadka oran jirnay waa xasan oo sidii baan leenahay maanta waa dadka reer Djibouti oo lacagiina Salama Africa Bank kala baxa meeshani waa la isku yimid waad arkaysiin waxa socda dadka reer Djibouti oo
salaam africa bank waa la isla wareersan yahay lacagiina kala baxa dadka ay ka yaalaan lacagiina ka gurta waa nii sheegaynaa waa niigu celinaynaa wixii aan nii sheegayna waa kaa bilaabmay maanta marka meesha lagu kala yaaco hadhow ooyinoo lacagaha iyagii aawaya iyo sida waa nala dhacay iyo meelahana lagu daalinina iminka lacagiinaba ka gurta dadka reer Djibouti oo meesha lacag ay ka taalo ninka salaam africa bank lacag ay ka taala ka gurta iminkaba waxa weeyaan ninkii meeshan shaqeey la heshiiyay ragga qarbiga ah baa badbaadaya ninkii doonaya anagu waanu haynaa khadka haday doonayaan ragga ku xiran Ismaaciil Umar rag badan ay doonayaan waanu haynaa khadka way la soo xiriiri karaan laakiinse waxaad ogaatiin baan leenahay maxay heeday wuxuu la wareersan yahay Ismaaciil Umar habeenkii ka dhaxooya aqalkiisa wuxuu la wareersan yahay waa arrimahaas haysta inagu ma arkaysiin dadka reer Djibouti ma arki karaan laakiin xisaabtaaba haysata oo ku socota marka salaam africa bank lacagiina kala baxaan leenahay dadka reer Djibouti wixii lacag ka taalo ka gurta meeshaasi waa la isku yimiday waa la iswadaa ninkasta ninkii badbaadin karaya uu badbaadinaya intuu shubi karayana uu shubaya ninkastaba markaas waxaan leenahay lacagiina ka gurta sheekadan yar ee ninkana maqlina Ismaaciil Umar way ka dhamaatay ninkani mar dhowna waa la ishayaa waa kan imka Xasan Saciid laga kari lahayo doonay cunaa inuu qabto Xasan Saciid wuxuu ku haystaa Mareykan buu ka dhaxarkayaa oo wuxuu leeyahay adaaba Mareykanka ay ugu dirayo oo la shaqeynayo uu leeyahay marka waxaan Xasan Saciid ugu dhagan yahay imika waa sida ninkii sirdoonka Djibouti Xasan Saciid haystay Xasan Khayre marka waxa weeyaan waxaan dadka reer Djibouti sheegay halkay socoto waad arkaysiin lacagtiina ka gurta salaam africa bank waa nin sheegay imka bariya oo yina waayay walaalkay xasan waan kaaga mahad celinayaa kulliba barnaamijka aad iyo aad baad nuxurka aad u dul joogsatay bulshadana wax fiican baad la wadaagtay wax badanna waad ka soo sheekeysay ummadana kulliba wax badan bay ku qaadanaysaa bulshada reer Djibouti iyo Soomaaliya oo dhan xasan kulliba waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka xasanow barnaamijka aad ku soo gabagabeynaysaa adigoo qoraa weyne Xasan Sheer oo ummadda kugu xidhan oo dhan ay dad aad u fara badan yihiin ay barnaamijkaagana ay sugaan adduunkana la rabo amba Djibouti la rabo inuu isbedel weyn u ka dhaco oo laga qaado garmaqaate iyo bulshada la shaqeysa maxaad oranaysaa kusoo gabagabeynaysaa waxaan kusoo gabagabeynaya xasan oo dadka reer Djibouti waxaan leeyahay niyadjibin isbedelku socdaa weyno imanayaan waxaan shaqo bay doonaysaa in laga shaqeeyo waxaan leeyahay salaama bankna saan igu celceliyo hore igu sheegay lacagiina ka gurto dadka halka lacag ku leh dadkana waxaan leeyahay cabsoonina hadeed waa anaga nii sheegnay in internetka Ismaaciil kaliya dhex fadhiyay shirkado kale ay yimaadeen hadeed la iska wada shaqeynayo waxba ka cabsoonina wixii haysiin nala qaybsadaan leenahay waxaan leenahay dadka reer Djibouti halkan ku socdaa uuna dhow yahayna guushuna way dhowdahay waxaan leenahay waan salaamay iyo maalin wanaagsan